Soomaaliya waxa ay taagan tahay isgoys waana adag tahay inay doorato wadadii ay ka qaadi lahayd isaysiga doorashada ka jira waxa uu muujinayaa in wali siyaasiyiinta Soomaalidu bislaan isla markaana aysan waaye aragnimo badan ka dhaxlin wixii dalkan uu soo maray sheekadan waxaan rabaa inaan kugu tusiyo dhinacan ka mid ahayn go'aamiyaasha doorashada sanadkan oo leh mas'uuliyadda wax kasta oo dalkan hadda ka qaldan dad badan waxa ay qabaan in xaaladda adag uu maanta dalku ku sugan yahay ay ku timid cayiilin siyaasadeed oo farmaajo lagu sameeyay 3 sano iyo barkii ugu horeysay ee uu xafiiska joogay siyaasiyiinta qaar waxa ay rumaysan yihiin in farmaajo markii uu xafiiska imaanayay uu aaminsanaa in dadka ku nool Galmudug Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir aan awood ciidan waxba looga qaadi karin saddexda deegaan ee aan soo sheegay oo lagu daro Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay waqtigan madaxdooda ku suntan yihiin kuwa farmaajo sax iyo qaladba ku garab taagan in farmaajo uu deegaanada helo siyaasad ahaan iyo cudud ahaanba waxa ay ka dhigan tahay miisaan culus oo siyaasadeed oo aan la looli karin haddaba sidee ayay waxani oo dhan ku dhaceen xasan cali khayre waa filosoofka farmaajo u sameeyay wax kasta oo ihaano ah oo lagula kacay dadkii uu siyaasadda ku matalayay sida uu qabo sargaal sare oo ka tirsan ciidankii xoogga dalka ee dawladda dhexe oo aan Muqdisho kula kulmay laga soo bilaabo weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhiibistii qalbi dhagax xayiraadii madaxweynayaashii hore doorashadii dhiigu ku daatay ee Koonfur Galbeed afduubkii doorashadii Galmudug weerarkii culusaa ee ahlu sunno lagu qaaday cunaqabatayntii Kismaayo iyo waxyaabo kale oo badan waxa ay ahaayeen kuwa uu Khayre u gogol xaariyay xukunka farmaajo ee maanta siyaasiyiin uu isagu ka mid yahay ay ku tilmaamayaan inuu yahay kalitalis aan hore u soconaynin kaliya kuma ekaan fulinta ficilada dawladnimada lidiga ku ah ee dhisaya hab dhaqanka kalitalisnimada ah ee waxa kale uu fagaarayaasha la taagnaa xasan cali khayre hadallo uu ku sheeganayo in wax kasta uu isagu sameeyo kuna qanacsan yahay wax kasta oo dalkan ka qaldamay iyo aragti kasta oo sheegaysa in farmaajo uu muddo kororsi iyo xukun isku dhijin wado waxa sabab u noqonaya Khayre oo halkan soo gaarsiiyay ayuu yiri siyaasi diiday in magaciisa aan idin la wadaagno xasan Khayre haddii uu doorasho xur iyo xalaal ka qaban lahaa Galmudug sidii dhacday 2015kii waxa maanta la heli lahaa madaxweyne reer Galmudug oo ugu yaraan miiska marka uu fadhiyo aan laga dhaxlin ee fikirkiisa iyo taladiisa deegaanada uu matalo fagaaraha ka sheegta ra'iisul wasaarihii hore waxa uu aad ugu faanaa in uu ciidamada dalka dhisay laakiin dadka isaga naqdiya waxa ay weydiinayaan ciidamadii aad 3 sano iyo bar dhisaysay maxay ku xabadeeyeen adiga oo dhigaya mudaharaad nabadeed taasi waxa ay daliil cad u noqon kartaa in Khayre uusan ka shaqaynaynin wax dawladnimada u wanaagsan maxaa yeelay haddii uu ahaan lahaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo deegaan iyo dad matala ma uusan joogi lahayn xafiiska ee mar hore ayay arrimaha siyaasadda isku qaban lahaayeen madaxweyne farmaajo dadka ku dhowdhow waxa ay sheegayaan in Khayre lacag iyo caannimo wax aan ahayn uusan ka soo dhaxlin xafiiskii uu 3 sano iyo bar joogay waxaana siyaasiyiinta Soomaalidu ay ku sifeeyaan in uu ahaa siyaasi madi ah oo aan saaxiibo samaysan intuu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo dhawaan wareysi bixiyay ayaa ku tilmaamay Khayre siyaasi cunaqabateen iyo go'doomin isugu daray deegaanadii uu kursiga ku matalayay howlwadeenna xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsanaa waxa ay sheegeen in si hoose uu xasan cali khayre oo dhuumaalaysi ah ula shaqayn jiray maamulada Puntland iyo Jubbaland taasi oo dadka qaar ay ku sifeeyeen karti xumada haysata qof ra'iisul wasaare dalkan ka ah oo haddana aan lahayn ku dhac iyo karti siyaasadeed oo uu ku fuliyo wixii uu rabo kuna diido wixii uu dib u arko mufakiriinta siyaasadda waxa ay sheegayaan in Khayre uu fuliyay dhammaan wixii uu u baahnaa farmaajo sidii uu dalkan u sii haysan lahaa laakiin waxa la isweydiinayaa muxuu Khayre uga soo hoos baxay farmaajo maadaama uu isaguba leeyahay astaamo kala talisnimo mushkiladaha uu dalkan geliyay Khayre waxa ay u baahan doonaan wax ka badan 4 sano si looga soo kabsado ayuu yiri sargaal ka tirsan xisbiyada siyaasadda ee wadanka dadka dhaliila Khayre waxa ay ku tilmaamayaan Khayre inuu yahay farmaajo kale oo dhex fadhiya mucaaradka maadaama uu hadda 2 garab u kala qaybiyay musharaxiinta mucaaradka oo hal kudlad ahaa markii uu isagu ku soo biirayay waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo
inaan aqbali doonin dariiqa saxda nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed waxa kaloo isweydiin mudan maxay mucaaradku u soo dhaweysteen kalitaliska yar marba haddii farmaajo ay ku tilmaameen kalitalis in xukunka laga farmaroojiyo ay tahay mise labada kalitalis haybtooda ayay ku kala fadileen